We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your waxaan halkaan isugu nimid barnaamijkaan isugu nimid halkan ayaan ka hadlaynaa haddii ilaahay awoodda raalli ka noqdo. barnaamijkani ma aha tacsi, ma aha hawl kale. waa nin odayo walaalkeena oo dhintay ee kabarigan blueska iyo wakiilka ahaa mas-uulkiisii ahaa ayaa naga baxay. marka waxaan ku talagalnay inaan boorkii u yeerno dadkii customerka ahaa oo la shaqaynayay kabariga inaan update garayno. kabariguna uu usii shaqaynayo sidiisii hore lana dardargeli doono insha Allah. nin qaaliya oo aan jeclayn buu ahaa. ilaahay dadka ha u waasiciyo. dhammaanteen ilaahay dembigana ha dhaafo. waxaan halkaan uga yeerayaa maadaama barnaamijka furanayno dad muslimana aan nahay, Sheekh Daawud Cali inuu noo furo oo ay dhexbraaka noogu furo. falyatafadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ilaahay annagana hanaba isagana dambigiisa ku dhaafo. waxaa xafladda nala jooga oo aan idiin sheegayaa jiifkii isliinood iyo ku-xigeenadiisii ayaa jooga. marka waxaan idinka codsanayaa maadaama aan isugu nimid arrintaa blue sky, ninkii odaga ahaa oo managerka ka ahaa waa dhintay. wax kastaana dhici kara inay dadka isdhaafeen. dhammaanteen hortaan iska cafina, isagu waa naga hooseeya. qof kasta oo wax ka tirsanayay ilaahay dartii hawa cafina. intaa markaan dhaafno waxaan u yeerayaa Mufti Daga Cadde oo odayga xaafadda ah. falyatafadal. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمان وعليكم السلام يا سلامة دين الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الكلام هذا لنا وقت جيني صوت حسين وتصو قبل الشيء يدي اللي يا ري وسيد حبيبي وبشريها هاي بدي قريتها ninkii xaashi ahaa xaashi axmed oo dhintay allah naxariisto
وأنا ملاينا رجع إنه وذي لنا شغيسة جري أرنتيسا يا ماشى السويمي ما هذا كوريا تعسي هذا كمان مرة قفكم مرة طول لين الله ونحرسته وتعسيس الله ونحرسته وتعسيس marka dhamaantay waxaan leenahay Allah u naxariisto mid kale kabali hadii ku leeyahay lama xirin in la xiraaro ummadshadu si soo shaqeeyo u tashaday odayaashii iyo hadii ku kastabkii la shaqeyn jirayna inay sidoodii ugu xiraadaan hadii ku leeyahay dhalinyaradii hadii ku leeyahay shaqeynaysa saddexda bilood oo hadda xaashi maqnaa sidii bay shaqada u wadayaan waxaan marka rabnaa annaguna inaan hadii ku leeyahay odayaashii حكتدا هيان هاي وهدي لعله ضدهم وحكلا جلان وذي اللي كمان معهم ممكن وذي اللي كمان معهم مركب وضعي هذا ولا سواء باري لا رديه لا ورنكاس يقول يا وحباي جالي أما ساسا وحبيهين إن هاي وتشوفنه وهذي يقول يا ديار دين هاي شغالين الرجل وذيو سن نظيف وذيو haddii ayagu hadii hore wax tabtaan oo soo diraan oo yiraahdo war hebel ah waxay galeen oo tagana aan ku baraarugno hadda dhig war odayga waagi ninku dhintay waagi ninku noolaa markuu dhintay dhammaan araga hadii odayga ka soo baxay ma aadna dhihno nabicsan ayaan rabnaa wiilashii dhalinyaradii ayaa shaqeynaysa liiska sidii u furan yahay shaqadii sidii u furan tahay dhammaan hadii hore way soo dhaweynaynaa intaas aniga warkay u leeyahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الجوجة سيها إنه بدون رجعة وحنوير دورنا حتى كنا تطلع وفوق الأرض مننا وحنوير يا عبد الرحمن رجعة خلي تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أمان أخيار سلفت له أفضل بمصر كيف جوكتو يقيمه له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي ولكن الله نحرسه. أنا ما تؤمنوا بأي ودعو. إن شاء الله كان غفر الله لك جثان جينا ونجمعه. ولا يا أوصيك يا الله ولا تنماء ولكن أنا نعرفنا بالدعين. نقيم له وقت أن هذه أدوينها لكن إلهي أصبح استوى الآن. قفل ما غير ذي وسويسة مالك دعاء يعني كبغيل عفسي يعني كبغيل أخر بقى نعمل هنا أخر بقى سير مالك ولكن عفنا عن الدعين قبل قال الله سعيد كتاب كسرني الله حسي إلى أن ترى الفردوس أو بشاري أنا يعني دبي أنا الله خاف أنت أخذت كذا بعيسى كل ورشة يقينه هنا يوجد وياش عن شيء يدني هذا أنا وحنا يلا نبا ولكن أدون وليهين ونبا ما تكون رأينا ولكن أحسن جدا وأنا أوهي حتى نسيت على رأينا أوهي لنا يا جوجا على هذا جوجته حرك شغينا يا جوجا يعني أنت أصله من الشيء كمبريا عرفنا كمبريا نسير وضنا هنا جوال كسينا نو جوال هاينا هنا كتابينا سيب هم كنا سينا هذا وكل يلا يمكن أن الله على جربا يعني هنا مثلا مسؤولية يعني مثلا الله أنت ما يجوجه وضيف مثلا إلى ورد وحشو بما هي كان كبر يا أساس وشرعي وبلا تسلم عليكم. هذه الدكتور سيدة عبد الرحمن دقعته وحن ويا إن شاء الله تعالى إسماعيل الشبوري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسول الله مركبوه رئيسه وحوكوا الضايا ويعبر وينك مدلود وحن تأسيد تيرايا لأدرايا ولكن حاشي أحمد فارح لبي قرابي يقول عصتي رمان وكبير يودي رمان غير إسرائيل أنا عنده غير ليبود ولكن سيدنا أبنائي هو ورمود هو للهو الكرأة هو للهو في سبكة أكيد مقتها يدمينهم لهم بوقتي وليهاي قدرتي الله تمك وقتي يسير انت سوق كان أنا waxay noo tahay arinkaas inaan tusaale ka dhigano nin walba way sugi arinkaas
saas darteed waxaa la rabaa inaan annagana aakhirana u saad qaadano adduunyadana aan ka saad qaadano insha allahu tacaala. midda kale waxaan cafis u codsanayaa intiina meesha fadhida dhammaan ganacsatada Nairobi inay cafiyaan walaalkood maadaama uu ku jiray how ay dhici karto in dad badan ay isqabteen ayadoo ganacsi lagu jiro. marka ganacsiga markii lagu jiro wax walbaa imaan kara. marka hore dhammaanteen aan cafino ma cafin maasha allah annagana cafiskaasaan qayb ka nahay walaalkeen waan cafinay. alla subxaanahu watacaala waxaan ugu baryaynaa in uu jannadii firdowseed uu ka waraabiyo khayr iyo barako na uu la kulmay insha allah. eheladii uu ka tegayna uusan gadaashiis fidnaynin oo wanaag iyo khayr iyo barako ayagana ay la kulmaan. كل حاشي هذا ولا إنه صار لمن أو كمتي معروف أو كتجي أو شيء أو هاين لمن أو طالبين يجوجا أنا نسينا إن كان أو نوتين رجل شغلنا إنه يولي جوجا مرحبا كلام صرايا إنه والله كان سيدي لولا شغل يجري أسرع لولا شغل يليش أو كتجي أو شو سوى الدون إن شاء الله تعالى. أهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad iyo aad buu u mahadsan yahay Ismaaciil. waxaan ka cudur daranaynaa ganacsatada isugu tiri meeshaan ragga u hadlaya magaca ganacsatada ku qoraya waxna waa la jeclaysanay oo aan dooranay maaha. waa guddi ayagu ay ganacsatada dhexdooda iska soo qoreen. haddii guddi aad lahaydeen aan dhexdoodnay iska raalli ahaada waa ka cudur daaranaynaa bini-aadan baan nahay. waxaan u yeerayaa weli waxaan ku dhex jirnaa ganacsatadii Salaad Aadan Nuur. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أتكهل كان فدي مصر يمعك استويليه والسلام يا وحنك السلام يا سلامك سلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت اسكبعد ولا ليال منك ولا لكين هاي حاشي أحمد فارح هاي قابلتي إلهي هو نحرسك. annagana bacdigiis ilaahay lama fidnayo. intaas ka bacdi waxaan maanta meesha la isugu yimid waa duco in la iscafiyo. intaas ka bacdina waa kimberigii ninkii odagaha aasaasay oo dadka dhama ay og yihiin runtii kimberiyadu way jiri jireen laakiin waxaan malaynaa dad badan inay xusiisan yihiin kimberigaasu waxa uu ganacsiga iyo businesska isli uu ku soo kordhiyey. waa laga yaabaa inay isku aragti laga ahay. marka kambanigaas oo hadda ay ku soo korortay ilmihii agoon tahay oo meesha looga tegay intaan anagu isleeyahay waa u qaban kartaan. waa in maaragta shaqadaas ay ayagu maaragta irsaaqada ka sugayaan in maaragta iyadoo dar ilaahay loogu darsanayo hawshaas. markii hore kambaniga saafiskiisa macnaha shaqada lagu sii jiray inay haddana midaas ku soo korortay oo maaragtay isha aan ilaahay dartiisa ajar iyo xasanaad uga raadinayno. marka hadda ganacsatada sheegtay ninkaas walaalkeenu shaqo badan u hayay waa suuragal dad badan inay isqabteen in la iscafiyo oo maaragta ninkaas la cafiyo isagana ilaahay jannatul firdowsaha ka waraabsho godkiisana god jannada ku yaal allah uga dhigo. marka annaguna intanadaanu ganacsataa waa fursad runtii inaan iscafino annaga ku nadar dhexdanada sidaasaa maaragta xaashi bacdigiisaa dad badan dhinteen. marka inaan annaguna iscafino waa iscafina soomaa walaalkeena waa cafino. hadda kambanigiina waxay la tahay sida uu sheegay ninkii walaalka yahay uga horreeyey rag loo tababaray oo xaashi muddo soo tababarayaa u jooga. waxaana kusii boorinaynaa kambanigaas runtii shaqo wanaaggii lagu bartay iyo saafiskii lagu bartay inaadan adinku mas-uuliyaddaas dayicin. annaguna midda nooga aadan maaragtay aan ka gacan siin doono insha allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad u mahadsan yahay Salaad. weli waxaan dhex soconnaa ganacsatadii Cabdullaahi Cabdulle Guuleed Gaafo ku soo dhow qolka badan. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. marka koowaad kolleygii rag badan oo odayaalaha iga horreeyey hadal lagama tegin. sidoo kale waxaan tacsi u dirayaa dhammaan
ehelada qaraabada caruurta xaasaska walaalaha iyo waalidiinta dhammaan dadka uu ka tegay maslaxaasha axmed faarax warsame sidoo kale waxa waaye waxaa laga dalbaday dadka muslimka ah ee Soomaaliyeed in ay cafiyaan oo si kaliya loo cafiyo waana xaqiiqo jirto in dad badan oo wada hawlkara oo wada shaqaynaya oo waxa weeye hawl la wada qabanayo in la isqabanayo oo wax dhacaya oo mararka qaar qadaf imaanayo mararka qaar waxyaabo la kala tirsanayo laakiin waxa ugu muhiimsan fursadda adduunyada la haystaa waxay tahay in la iscafiyo dadka wax cafiya ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay marka dhammaanteen si kaliya laaba aan u cafino intaas kadib kulankan waa kulan duca ah aan u ducayno ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu qabriga u waasiciyo اللهم اغفر له وارحمه ووسع له القبر آمين لما أنت sidoo kale waxaa laga hadlay kambaniga runtii kambanigan horay mustaqbal wanaagsan ayuu u lahaa ummadda dhexdeeda ugu lahaa waxa waaye kambanigan sida aan wada ognahay maalintii uu ku soo biiray saaxadda kaargooyada wuxuu ka bedelay wixii hore u jiray wax cusub ayuu la yimid runtii waxa waaye waxyaabaha uu la yimid waxaa ka mid ahayd in asagoon xafiis lahayn asagoon store lahayn oo goodhown lahayn oo shaqaalo lahayn in la soo raray alaab oo alaabtiina marka ay timid xafiis iyo goodhown iyo shaqaale heegan u aho dejiye intaba la hela runtii wax cajiibay ahayd waxaa kaloo cajiib ahayd oo laga maarmaan ahayd sidoo kale in 20 container oo isku xiran intay degada soo gasho hal maalin la cashuur waa arrin cajiib runtii arrin hore u dhacday oo kambaniyada hore loogu yaqaan maaha sidoo kale mastaxab xaashi axmed faarax allahu naxariisto nin howlkar u ahaa waxyaabihii aan ku xasuusan karna waxaa ka mid ahaa xilligii koronaha 2020kii oo adduunka ku habsaday waxaa jiray runtii xogaa niyad jaba dadku waa niyad xumaadeen ganacsiga inuu istaagaa loo qaatay xilligaas oo kale wuxuu ahaa ninka ugu horreeyay ku dhiiraday in uu alaab soo raro runtii dad badan oo aan ka mid ah waa beesa jirnay waxaan dhihi jirnay alaab lama soo rarin mana soo socoto laakiin waxa muhiimka ah oo aakhirka aan aragno waa runtii maalintuu islii soo istaajiyey oo uu keenay maalintaasaan runtii rumaysanay kambaniyo badan iyo dad badan oo kaargooley iyo rag badan maalintaasay ku dhiiradeen in alaab cusub soo raraan marka waa taariikh walaalkeen lagu xasuusta howlkarnimadiisa sidoo kale walaalkeen waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah allah u naxariistee runtii bulshada lafdhabarteeda sida ganacsatada Islii Business Community wuxuu ka ahaa xubin firfircoon wuxuu runtii uu isku dayay dhowr goor oo uu dhiirigeliyey in lala macaamilo dowladdeena si wanaagsan oo sharaf leh ay ula macaamilay uu ku dhiiraday sida markii dowladdu ay go'aanka ku gaartay in cashuur lagu daro dharka khaasatan dharka in cashuur badan lagu daro xilligaas allah u naxariista walaalkeen wuxuu hormuud u ahaa dadkii u guntaday in aan cashuurtaas alaabta lagu darin laga hortago wuxuuna si waaqici oo dhab ah oo xaqiiqa ah dukumentiyo u horgeeyay dowladda oo waxa waaye ka dhaadhiciyey asaga iyo rag kale oo Islii Business Community oo garabkiisa in arrinkaas aysan suurto gelin oo meeshii lacag badan lagu dari lahaa wax yar lagu bitiyo marka waa taariikh walaalkeen ku xasuusano runtii qofka muslimka ana lagama xaqiro wixii wanaagsan oo uu qabto walaalkeen intaas waa uga mahadcelinayna waana ku xasuusano waxaa soo hartay arrinta shaqada kambani runtii arrinka ugu muhiimsan waayo maanta kambani wuxuu taagan yahay meel isgoys ayuu taagan yahay isgoyskaas annagoo dad muslim ah walaal ah oo horena shaqo ugu haysanay maantana waxa waaye awood waa u leenahay inaan isgoyskaas ka tallaabin oo waddadaas goysiino sababtoo isgoyska marka aan leeyahay wuxuu joogaa meel kale goysa mucallaq waa lalaal waxaan idinka codsanaynaa oo aan aniga shakhsiyan alrayaan group magacooda anoo ku hadlayo waxaan idinka codsanaynaa insha allah in la dhiirigeliyo wiilasha dhalinyarada dadka waxa ugu muhiimsan waa lafdabarta oo waa dhalinyarada xaashi dhalinyaro ahaa haddana dhalinyaro ka tegey waxa waaye runtii waxay kambanigu taagaya maanta meeshii ninka habaraha uu yiri
aabbo waxaad samaysaa adigu eedda waxaad ku tiraahdaa haruubka ii buuxi ama haruubka loo buuxiyo wiil marka intaas kaliya ii dheh sidaasuu yidhi wiilkiina haruubka sidaasa lagu buuxsho marka maanta dhallinyarada iyo dadka uu ka tegay oo agoonta ah waxay u baahan yihiin haruubkoodu horu u buuxay wayna ladnaayeen shaqana way haysteen laakiin wixii ay haysteen in loo kordhiyo oo loo siyaadiyo oo haruubkii la buux dhaafiyo intaasaan aan idinka codsan lahaa anoo magacaa ku hadlayo Al-Rayyan Group annagu khaasatan waa ballan qaadaynaa waana u taagannahay waana dhiirigelinaynaa alaabtana waa keenaynaa halka arrin oo kale oo muhiimka ah waxaa weeye dadka ganacsiga iyo kambaniga dadka hadda hormuudka u ah odayaasha dhammaan ganacsatada kale oo waaweyn oo nala joogto waxaan rabaa inay u caddeeyaan in kambanigan ay odayaal ka yihiin inay ayagu u taagan yihiin in wiilashu ayagu ay baragantaanayaan marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala kolley kulankan iyo kulamo dambaba waa isugu imaan doonaa waxaan rajaynayaa in insha allahu meesha u jooga maanta laga sii wado sidoo kale waxaan idin leeyahay walaalayaal aan wada jirno walaalayaal aan wada joogno walaalayaal aan isweheshano walaalayaal aan wada shaqeyno walaalayaal aan iskaalmayno walaalayaal wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gaafow waxaan hadda u wareegaynaa diilaha wadanu raalli ka noqdo dhinaca kabaniga waxaan u yeerayaa cabdisalaan rashiid oo kabaniga u qaabilsan soo dejinta dekada Mombasa falyatafadal cabdisalaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وعبد السلام وحان لا شقين جري مرحومك حاشي أحمد إنك وحان هاي مباسي جوغا مركا برشو نحسن أخيارتن أنيقا وحيدين بلقاضيا إن شقادي السيدة دي إسيكسي فعنا يكسو عليس إن شاء الله وحسبدا لما جيرو شقادي السيدة وصو سعين جرتي وصو عليسا نيكا أضيقا وحوشي لواتكو تليهر ما لدجيه لواتني كبدن ولا دجين جري ولا دجينا إن شاء الله مركا عصيها قبيلة إن شاء الله شقادي وصو عليسا intaas iyo barasho wanaagsan baa leeyahay salaam calaykum warahmatullahi wabarakatuh aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdisalaan waxaan u gudbayaa hadda arrin dabgeedin qarnay shaaytullah shaadullah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتكلم عن ملنا يا magacayga loo inay magacayga marka la jiraan ma aha horta wax yaqaan hadda waa yariin ragga aan sanadkii waa yaraadeen dhalinyaro loo batay marka fursad wanaagsan ay tahay horta in aan intaan oo isku cusubnahay maanta hor istaago marka waa mahadsantihiin aqbalada soo aqbashaan shirkii sida ku soo waafaqdeen wax wara oo hadda dhimanna ma laha oo dadka iyaga iga xogaalsan aniga meesha waxaa la ii keenay waxa weeye soomaalidu waxay tidhaahdaa meesha ilka ka baxaan carrabaa u haweysta maadaama un magacayga iyo odanimadeedu xaashi aan odag u ahaa jiray horta intaasaa lagu keenay haddana iyadii aan idiin xaqiijinaya haddii ilaahay qadaro inaan alaabta u istaagno dekadaasna aan alaabo ku daahin kuna xayirmin wixii gudahana adinka iyo dhalinyarada ayaa idintaa lahaa oo laydinka rabaa marka aadaad noogu mahadsantihiin sidaad noo aqbasheen aadna u hadasheen oo maaragta arrintii aada u wajahdeen annaguna ballantaas aynu kuu qaadayna ilaahay hadduu qadaro ninka dekada jooga cabdisalaam iyo maaragta haashina labadoodabaana aabbow ahaa jiray إن شاء الله وشغله ودنا حتى نقوم نقولنا هذه لها قدره مركب ومحسنتين بقول كيلو لو بقول ومحسنتين هذا نقوم هالعلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبي ومحسن يا عبد الله وحن درسوا هذا الكياف وها دبانات هذا هذا وحن مالين يا مدحت الصدرية والله صراحة بشرو عبد الله oo ku magac dheeraayay Tuulay marka uu yiri waa naga shaafiya waxaan ku wareejinayaa Xuseen oo noqon doona managerka kabani
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مهزنتين عاصمادي أنا بشان حفلة نواه سنة كي أفراد شغالة بالعاب الدولات دولا إدمو هذا مهزنتين لما ماركت جناحسة هذا يورياش يدفع لنا جلس واقعي دولة أنا كحالي هذا حسين علي أحمد علي هذا هذا كي كامبين كان أساسي هذا كي وارد تابع مشاع أنا مقع كامبين كوالله marka hore waxaan ka codsanayaa dhammaan dadkii la shaqeyn jiray adeer oo maadaama dadkay wada shaqeyn jireen laga yaabo inay wax dhex mareen inay iska cafiyaan oo maaragtay loo duceeyo ilaahay qabrigiisa u waasiciyo intaasaan marka hore codsanayaa marka labaad waxaan idiin ballan qaadayaa ilaahay idinkiis in wax walba sidii ay ku socon jireen ay ku socon doonaan in shaqadii sideeda ay ahaan doonto oo shaqadan waxay tiim ahayd dad badan aan nagala shaqeyn jiray 30 qof ku dhawaad aan nahay oo jooga Nairobi iyo Mombasa iyo Kwanzu iyo Hong Kong marka inay wax walba sidoodii ahaan doonaan oo shaqada sidii aan nooga barateen aan kugu qaban doono idinkana waxaan ka rabnaa in ka codsanaynaa in sidii aan noola shaqeyn jirteen si ka fiican noola shaqeysaan oo alaabta aan siisaan anaguna wax walba wixii aad barateen intaan ka siyaadi karnaan ka siyaadino intaas aan ka codsanayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu جزاكم الله خيرا waxaan ugu durdaaray ganacsatada iyo muslimiinta dad jooga oo ka durdaatay inay halkan ka hadlaan sida Harun Hussein oo kale waxaa muhiim ah marxaba shir la galo waxa lagu soo gabagabeynaya madaxda waxaan u yeerayaa Chief Kamau u jaaba Chief Kamau tafadhali السؤال هو Chief Commissioner السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jina ni Famau si Kamau Bajun walamu Bajun lakini Kamau ni kama Kamau tukitoa K unaweka alhamdulillah kullu nafsin dha'iqatul maut inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sote sisi tutakufa hatujui tutakufa wapi sisi kama watu wa serikali hapa nimekuja na wenzangu Madam Jawahir yuko hapa Iron Lady, the only Somali woman chief in Nairobi. Alhamdulillah, mumpigie makofi. Muhammad pia Gedo tuko na yeye na mzee wetu mzee Isaac. Almarhum alikuwa jirani yetu na ni binadamu. Alokamili ni Allah peke yake. Huenda amekosa. Sisi mimi kama chifu wake wa hapa Isli ningeomba tumsafishie nia, tumuombe Mungu Allahumma filahu warhamhu waskana fil janna, awe katika janna, na tuombee familia yake subra. Na nimefurahi nimekuwa nikitranslate umesema utahakikisha container zinakuja, hiyo ndio muhimu sana. Na sote tuko hapa na wale wako hapa, tumsamee, tumuombee Mungu. Allah ndo anajua kwa nini alikwenda akafia kule. Kwa hivyo tusiwe na huzuni, tushukuru hata sisi kwa siku tutakufa. Kwa hivyo tumuombee Mungu, tumsame. Wangapi wamekubali tumsame? Tuinue mkono. Na dua kila saa, tukiomba dua Allahumma fir lahu warhamhu waskana fil janna. Tuwe tunamuombea kila mara. Shukrani. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa billahi tawfiq. يا Chief Kayagu marka waxaan u yeerayaa Deputy Chief Jawahir oo maadaama dadku aanay luqadii chief ku hadlay saaqon si ay noogu soo hadalkeena uga tiraahdo fadhi tafadhal Jawahir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. reertolkay walaalahay aqribaday qaraabaday walaalahay waan isalaamay salaanka bacdigeed xanshi wuxuu ahaa walaalkeen nin walbana maalintiisu dhimanaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay samir iimaan naga siiyo awalan teeda labaadna inaan iska caafino weeyaan caafiskaas oo qof kasto maalin uu tagi doono oo nin walba oo qofka walaalkiis inuu caafiyo ay munaasab iyo wax oo laazim ay nagu tahay hadaan muslimiin ah saas la adligeed waxaan iga baryayaa nin walba inuu xanshi iska caafiyo xanshi wuxuu ahaa nin aad iyo aad codkar u ah
nin aad iyo aad dadkiisa u difaaco nin aad iyo aad xaqiisa garanayo he used to know his rights rightkiisu garan jiray kamuuna cabsan jirin hadalna ka uu ka dhadhiijin jiray saas darteed waxaan rabaa ilmihii looga tegay kaambaniga inaan annagoo dhan mas-uul baa naga saaran inaan garabkooda noqono garabkoodana aan ka bixin ninkii aan ku jirinna hadda uu soo galo marka inta baan dhihi lahaa magaceygana waa Jawaahir Maxamed sida niila sheegay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad bay u mahadsan tahay Deputy Chief Jawaahir waxaan ku soo dhaweynayaa Chief Maxamed Othna Deputy بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mimi kwa majina ni Muhammad Isaac Assistant Chief Sleep Garage Sub Location mimi sana nimezaliwa huko boda ya Moyale ambaye mahali wagari wanakaa juu Kisomali na mnajua lugha zina tunaongea sio kwa hivyo mimi kwamba naombea brother zetu Hashi ni mtu mwingine no nonsense mtu ambaye anajua haki yake. Hako siku mahali tulipatana aliniambia mpaka sasa nakumbuka tu. Aliniambia maisha yako usigope mtu gopa Mungu. Na ujue haki yako. Na ugope Mungu. Kwa hivyo sisi kama community wa Sli tumekosa a figure person, a figure elder, a figure businessman. Kwa hivyo mimi naomba tu Mungu apeleke mahali pepa mema popeni. Kwa hivyo mambo mengine hapa ni mambo ya kampuni. Kukwetu inasemekana hapo mzee aliulizwa sasa unakufa. Hebu ongea. Alisema hivi, mimi sasa nitaongea nini? Family muhimu ni baba. Kwa hivyo hii kampuni baba sasa ameenda. Hakuna mtu anajaza hiyo pengo. Lakini mimi naomba brother yangu ambaye ni manager na mtu wa Mombasa muvae kiatu. Na zamani mlikuwa chini ya shed ya mzee Hashi. Huyo ameenda. Sasa ni nyinyi ndio wanafaa kupeleka. Na tunaombea hii family, mahali baba amekufa, fitna ni mingi. Tunaombea Mungu fitna asitoke nyuma yake. Inshallah tunaombea. Kwa hivyo hata sisi tuko hapa kama assistant chief na assistant chief wawili na senior chief wetu tuko na nyinyi tunasaidiana. Watu wa business community ambaye mko hapa kama mko na shida kila siku tuko na nyinyi. Sisi ni mfanyikazi yenu usiku na mchana. Kwa hivyo karibuni tuombee brother yetu Mungu apeleke peponi na asilete fitna familia yake baada ya kufa inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aad mahadsan yahay chiefka iyo dibitiyaashiisa dhammaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka mahadcelinaynaa sida aad u soo ajiibteen xafladda iyo fadhiga quruxda badan oo noogu timaadeen waxaan kaa doodaaranaynaa wixii qalada oo naga dhacay waxaan nahay bini aadan waxaan ku talagalnay maaha halkaas ayuu wuxuu noogu xiran yahay shirkii aan isugu nimid quruxda badnaa waxaan amrayaa in qadada la bilaabo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال يا مصر نبطي أن مهم إن لك الله وحد يسوي هذا خلهم وجاي مكبرك بحناية وما لهم هذا يسوى واحد كله سلام يا بحني الغلدة كبرني بملها بمسكين ملها على عقبات معها أو وحش بحني السلام على بحني الغلدة وبالله التوفيق. We're
here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's